السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. رب يسر ولا تعسر وأعنا يا كريم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف الدارين آمين. عشركي بقول إلى بعد سان هوري بندق أن أوش شاقيب إنه نقهد للدونة أولي إنا صعطة سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني وحيابها كدق الدين تيسا إنا وارته أو الدنيا دان أي قارته هور أيان أشاقنا يسان ساف أهين أي أهيد أخلاقيات، وحان كشاكينا دور أخلاقيات أو نبينا عليه الصلاة والسلام ليمت أو دين تان الإسلام كان أي حنبار سنتهي. إنكستو أن لسو كوبي كرين أخلاق دواناكسن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليمت أو إلهي حتى سبحانه وتعالى قرآن كيسكو أماني وكيري وإنك لعلى خلق عظيم، وحد حنبار سنتهي أخلاق آديات وين oo dadkii kaleete oo xataa muslimiinta ahayna u qirteen qaar badan aan hore u soo sheegnay inuu nabi maxamed la yimid akhlaaq aad iyo aad u wanaagsan oo yani aan lagu gaari karin akhlaaqdiisa wanaagsaneed sida uu yiri Michael Hart iyo qeyrkiisa. haddaba maanta akhlaaqda aan ka hadlayno oo nabiga maxamed alayhi salaatu wasalaam la yimid luqadda carabiga waxaa lagu magacaabaa alwafaa waa oofin. oofinta waxay noqotaa saddex qayb: oofin la oofiyo ballantii cid laga qaaday, oofin la oofiyo heshiiskii ay qaf wada galaan, iyo oofin la oofiyo qofkii ku wanaajiyey wanaagiisa inaad ugu abaalmarisid ama inaad ku ammaantid, yani wanaaga inaadan ku jisaarin oo aad u qiratid qofka wanaagiisa. dabcan dabeecadda lagu magacaabo oofinta ama wanaajinta waa dabeecad u gaar ah sida culimada ay yiraahdaan bini aadanka kaliya oo xoolaha ma yaqaaniin ballan inay kala galaan ama inay ahdi oofiyaan oo ballan iska qaadaan. waxyaabahaas oo dhan waxay gaar u tahay khasiisa insaaniya, bini aadamka ay gaar u tahay oo wax ogula tartamo oo makhluuq kale ma jiraan. haddaba dabeecaddaas bini aadamka gaarka u ah oo waxa laga yaabaa maanta qof walba casharkan dhageysanayo hadduu yahay qof muslim ah iyo hadduu yahay qof masiixi ah ama hadduu yahay qof laa diini ah, diin aan lahayn, qof walba niyad wanaagsan ee si caafimaad leh wax u fiirinayo wuxuu leeyahay mowduuc muhiim ah weeyaan: ballanta in la oofiyo, heshiiskii la wada galay in laga soo baxo, qofkii ku wanaajiyey inaad wanaajisid waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. su-aasha marka meesha imaanaysa waxay tahay dareenka kuu muujiyey shaygan inuu wanaagsan yahay oo kheyr yahay, inuusan ahayn wax xun ama uusan shar ahayn, dareenka xagu kaaga yimid? dareenkaas akhlaaqiga ah xagu kaaga yimid bini aadam markaad tahay? mas'alada waxay dhalisay dood weyn, gaar ahaan qarniyadii dambe laga soo bilaabo qarnigii 17aad ama 18aad waxay sii kululaatay qarnigii 20aad iyo qarnigii 21aad oo ah dareenkan akhlaaqda ah, akhlaaqda wanaagsan. qofka inuu dareemo inuu jiro wanaag, inuu jiro xumaan, inuu jiro khayr, inuu jiro shar, inuu jirto sax, inuu jirto khalad. dareenkaas waxay yiraahdaan dareen maadiga sameeyay ma aha, dunida ma aysan sameynin, waa dareen meel sare noogu yimid. marka culimadii falaasifada laba qayb ay u kala baxeen. waxaan xasuusanaa casharkii 78aad waxaan uga hadlay akhlaaqda maxaa asal u ah, hab falsafaysan, laakiin anagoo fiirinayay falsafadii ahayd axiology. laakiin quruntii dambe arrinta dabeecadda way ka dalacday axiology, waxay u dalacday ontology oo ah dareenkaas asalkiisa xagu ka yimid. marka arrintii laba ayaa loo qaybsamay. falaasifadii hore ee wada rumaysnaa badankoodaba
ama ilaa hadda casrigan falaasifada badankood waa dad mu'alihiin rumaysan ilaah inuu jiro. marka qolyahaas waxay ku magacaabaan dareenka noocaas oo ah moral objectivity oo ah yani dabeecadda inay tahay qaanuun degan oo awood noo dejisay. marka moral objectivity yani waxay soo galaysaa iyadana arrimihii caddaynayay ila jiritaankii ilaahay ay ku magacaabeen moral argument theory, yani aragtida ahayd inuu jiritaan ilaahay jiro waxaa noo caddaynaya dareenka dabeecadda, dareenka wanaaga iyo khalad iyo xumaanta, dareenka kheerka iyo sharta, dareenka sax iyo khalad. dareenka noocaas oo ah oo lagu magacaabo moral objectivity yani waa qaanuun degan. haddii qaanuunkaas degan la ictiraafana waxaa loo ictiraafay inuu jirto awood dejisay qaanuunkii ee nagu kaliftay inaan qaadano anagi. awooddaasna waxay noqonaysaa awood ka baxsan dabeecaddii, waxay noqonaysaa awood ilaahi ah. sidaa daraad marka falaasifada iyo aqoon-yahanada oo maadiyiinta ah ay kasoo horjeeda jiritaanka ilaahay, ilaah ma jira yiraahdeen, oo waxaana abuurtay dabeecadda ayaana ma aragtay dunidan samaysay ee ilaah ma sameyn, ilaahna ma jiro. iyagana waxay yiraahdeen maya, akhlaaqda ma aha dareen degan ama qaanuun degan ee qofka dareemayo u imaanayso, laakiin akhlaaqda waxa weeyaan moral relativism oo ah nisbiya, qof walba suu wax u dareemo inay akhlaaq u tahay. Sam Harris oo hadda Maraykan ku nool oo mulxid ah wuxuu yiri wax walbo adiga aad ku raaxaysanaysid waa akhlaaq wanaagsan. kuma xirna qofkan kale inuu dhibsanayo, kuma xirna qofkan kale inuu ma aragtay xumaan u arkay. wax walbo adiga aad ku raaxaysanaysid waa akhlaaq wanaagsan. sidaa daraad xataa Richard Dawkins markii la weydiiyey la yiri Richard Dawkins wuxuu qabaa shar iyo khayrna ma jirto, wanaag iyo xumaanna ma jiraan, sax iyo khaladna ma jiraan. kitaabkiisa Wahmul Ilaah hordhac buu ku sheegay. markii la weydiiyey isaga la yiri maxaad ku tilmaami lahayd kufsiga, maadaama hadda kufsiga ayaan daro yani wadankeena aad ugu faafay. Dawkins isaga markii la weydiiyey Richard Dawkins oo Ingiriiska ku nool mulxid ah oo caalim biology ah la yiri kufsiga ka waran. kufsiga wuxuu yiri waa dhaxal ayna dhaxal siisay dabeecadda si taranka bini aadamka u sii socdo. dhaxalkaasna nagama hari doono sida haramcaskaba aysan uga haraynin dhibcaha uu leeyahay. haramcas walbo dhalanaya dhibcaha uu ku dhashaa. sida garigaba aysan uga haraynin qoorta dheer. gari walbo yani dhalanaya wuxuu la dhashaa qoor dheer. inta garigay qoortiisa ay dheer tahay, inta haramcaska uu dhibco leeyahayna bini aadamka kama tegi doonaan yani dareenkan kufsiga ah. marka kufsiga yani isaga ma oran karo waa khalad waana sax, sababtoo ah sax iyo khalad ma jiraan, wanaag iyo xumaanna ma jiraan, shar iyo khayrna ma jiraan. marka sidaa daraad waxay yiraahdeen dareenka dabeecad wanaaga ah ma aha wax qaanuun degan oo qof walba wada dareemayo, bini aadamkuna ay dareemayaan, laakiin waa wax qaanuun yani ama dareen qof walba isaga u gaar ah. dabcan markii aad ku laawatid yani kuwii ka horeeyey falaasifadii hore sida Socrates iyo ardaygiisa Plato iyo ardaygiisa kasii Plato ardaygo ahaa oo Aristotle, kulli waxay arkaan qofka bini aadamka inuu yahay yani caqli iyo dareen nafsadeed. qofkana wuxuu horumar gaari karaa, dabeecad wanaag qaadan karaa markii caqligiisa xukumo dareenkiisii shahwadeed nafsadeed. nafsadu waxay jecleed markuu caqliga xukumo, markaas ayaa bilaabanaysa fadiiladii dabeecad wanaagii. marka caqligeena dareenka xaguu ugu imaanaya awood kale ka sareysa oo ka baxsan maadigii. saa ayay qabeen xataa filosoofkii Iiraaniga ahaa ee 1400 sano ka hor jiray Bidra Jamhar Bukhti Khan wuxuu ku leeyahay bini aadamka waxay u bilaabanaysaa bini aadamnimo iyo horumar markay ka adkaadaan dareenkii xayawaannimeed ay lahaayeen ay u gudbaan yani xukunkii caqliyeed ee bini aadamnimada xambaarsanaa. nin wuxuu ahaa majuusi ah, laakiin dareenkan bini aadamnimada waa dareen qofka bini aadamka xambaarsan ee niyadiisa saliimka ah ee ma aragtay u arko wax walba si ilaahay u abuuray inay yihiin. laakiin meesha dhibka ka imaanaya waxay yiraahdeen haddii aan aamino akhlaaq inay jirto oo yani akhlaaqdana ay tahay
objectivity hadday tahay macnaha waxaan aaminay awood dejisay inay jirto saa daraad marka ma aamini karno dareenka lagu magacaabo akhlaaqda taana marka hore waxaa bilaabay Friedrich Nietzsche markuu yiri ilaahi masiixiyiinta ay caabudayeen waan ka adkaanay laakiin waxaa noo haray asnaamtan lagu magacaabo akhlaaqda diineed ee diimaha noo dejiyeen asnaamtaasna inaan burburino si aan u niraahno wax akhlaaq ee diimaha noogu tageenna ma jiraan marka diin ma jirto ilaah ma jiro akhlaaqna ma jirto sharci khayrna ma jiraan sax iyo khaladna ma jiraan kadibna gadaal ayay ma aragtay arrintii kasii xoogsatay ay yiraahdeen waa inaan taas u dagaalanaa haddii aan nahay dad mulxidiin ah marka waxaa arrintaas si fiican uga hadlay filosoofka isagana mulxidka ila hadda nool ee ah Peter Kaff oo ku leeyahay haddii aniga aan niraahno ka mulxidnimo ahaan waxyaabahaas dhan way khaldan yihiin marka waxa adkaanaysa inay jirto wax lagu magacaabo maxkamad dadkii kala saarto ilaa maxkamad waxay u samaysantahay nidaam akhlaaqeed qofkan waa dambiile qofkan dambi ayaa laga galay qofkan wuxuu dulmiyay qofkan waa la dulmiyay qofkan waa sida qofkan waa sida waxay noqonaysaa inay noo sinaato haddii aan aragno aabba cunugiisa dhunkanaya xambaaraya raashin siinaya iyo aabba kale cunugiisa dhagax inuu soo qaatay madaxa ka burburinayo tan inaan ka xumaano ma aha tan inaanu aragno sax inay tahay ma aha mid wanaagsan iyo mid xun ma jirto wanaag iyo xumaanta dadka si wax u arkeen dareenka aabahan waxa laga yaabaa inay akhlaaq fiican u tahay wiilkiisa inuu madaxa ka burburiyo sababtoo ah isaga ku raaxaysanay burburintii waa inay noo sinaato yiri Peter Kaff wiil hooyadii ubax u keenay dhabta u saaray hooyadii farxad daraad u duceysay iyo wiil inuu hub soo qaatay hooyadiisii shabaq oo kale ma aragtay ugu furay xabadii ilaa ay ka geeriyooto dhiigeeda ka qaboow waa inay noo sinaato taa waxay keenaysaa Peter Kaff ayaa oranaya waa in aanan la eedaynin dadka badan laay marka wuxuu soo tirinayaa a'immadii mulxidiinta yani wuxuu ku leeyahay sida Mao Zedong oo 70 milyan qofood dilay 30 sano gudaheeda sida Joseph Stalin oo ilaa 60 milyan qofood dilay يعني labadaas kaliya waxay dhaafeen labadii dagaal ee dunida dagaalka koowaadna 17 milyan ay ku geeriyootay dagaalkii labaadna 60 milyan ay ku geeriyootay dagaalkii caalamka labada dagaal caalamiga waxa ka tira badiyay yani 97 milyan ay ahaayeen laakiin Mao Zedong 70 milyan ayuu laayay Joseph Stalin wuxuu laayay ilaa 60 milyan kadibna Adolf Hitler isagana wuxuu laayay ilaa 40 milyan kadibna Benito Mussolini isagana intaas malaayiin ayuu laayay oo ila 6 milyan lagu tilmaamay Libya inuu ka laayay Ethiopian inuu ku gubay gas sababta kulli waxa dhaliyay falsafaadkii ka dambeeyay Friedrich Nietzsche waxa saameyn ku yeelatay aragtidii Darwin falsafa ayuu ka dhigay tii waxa saameyn ku yeelatay Hitler oo falsafadii Nietzsche ku qancay aragtidii Darwin marka Darwin uu arkay bini aadamka jiritaankooda yani waxay ku jiraan waxa baaqi noqonay mar walba kii adkaado noloshan wuxuu soo hari doontaa yiri Darwin dadka bini aadamnimadooda kaamil noqotay oo timahoodana blonda indhahoodana colorka ah wixii iyaga ka hoosay waa bini aadamnimo naaqis ah kuwaasna in la laaya Hitler tii ayuu qaatay ku dhaqaaqay sababtoo markii ugu horeysay la kulmay Benito Mussolini buug ugu horeeyay hadiyaday waxay ahayd falsafadii Nietzsche taa hadana Mussolini waxa si saameeyay falsafadii uu la yimid Nicola de Bernardo Machiavelli falsafadii Machiavelli way si saameysay isagana danta aad leedahay wuxuu ku banaynaysaa wadadii aad u qaadan lahayd marka dadkaas ilaa 200 milyan in ku dhow baabi'iyeen wuxuu leeyahay Peter Kaff in la maxkamadeeyo ama lagu eedeeyo akhlaaq xumo ay la yimaadeen ama shar ay la yimaadeen ma ahu yiri marka anaga haddaan nahay dad mulxidiin ah ilhaadka ma ahu yiri arrin sahal lagu qaato waa qofka inuu dareema bini aadamnimada inuu u wado kayn wada dugaag ah oo insaaniyad iyo naxariis aan xambaarsaneen waxaana kayntaas ku noolaan kara dugaagii ku awood weynaado anagana waa taas inaan ku qanacsanaana isku diyaar gareynaa dadka nagu soo biirayana waa inay taa ku qanacsanaadaan waxa oranay Peter Kaff hadalkaygana waxaan ku khatimayaa yiri waxaan la inkiri karin anug yar aan dambi galin in laba dhagax la soo qaato madaxiisa la burburiyo ilaa uu ka dhinta la dilo taa marnaba suurtagal ma aha inaan niraahno shar ma aha marna suurtagal ma inaan niraahno yani arintaas waa arin aan wanaagsaneyn marka anaga isburinayna ayuu yiri
marka saa daraadeed iyaga yani waxay u tiirinayaan arrintaas falaasifa yaryar ayaa ka horeysay oo shaad lagu magacaabo. waxaa ka mid ah Aristibe oo qarnigii 5aad jiray oo ku leeyahay yani buugu qor u buuxiyay macaanka waa sawtii dabeecada codkii dabeecada. waxaa waajibka uu yiri qof walba inuu wax walba uu ku raaxaysan karo raadiyaa si nafsadiisa ugu raaxeeyo cidii doontaba ha ku dhibtooto si nafsadiisa ugu raaxaysto cidii doontaba ha ku dhibtooto waa inuu raadsadaa wadada uu ku raaxaysan lahaa. kadibna waxaa ku xigay filosofka Bentham isagana wuxuu ku leeyahay qof walba wuxuu xaq u leeyahay isaga inuu xukumo wuxuu ku macaansan lahaa. marka sidaa daraadeed J.S. Mill isagana falaasifada casriga oo mulxidiinta waaweyn ka mid ah wuxuu leeyahay isagana waxa faa'iido ku jirto taas ayaa akhlaaq ah. wixii raaxo kugu jirto qof iyo bini aadam ayaa akhlaaq ah oo adiga ku raaxaysan kartid oo yani saacado weyn aad ku gaari kartid. sidaa daraadeed marka akhlaaqda waa sheegasho waa dareen ee ma aha qaanuun degsan ee caqliga bini aadamka loogu baahan inuu ku qanco oo yani ku dhaqmo. sababtoo qaanuunkaas degan haddaan qaadano siduu yiri Maki yani waxaa noo cadaatay inaan banayno jiritaankii Ilaahay. William Graham isagana wuxuu leeyahay waxyaabaha dadkay u arkaan khalad inuu yahay inuu sax inuu yahay waxay ku xiran tahay dadkaas waxay caadi dhaqan ay ka dhigteen ee kuma xirna qawaaniin diini ah ama caqli ah oo ma aragtay inuu waxa sax yahay iyo waxa inuu khalad yahay. marka xukunka ku saabsan sax iyo khaladka iyo khayrka iyo sharta waa qof walba soo arko ee wax jira ma aha. marka saa daraadeed akhlaaqda waxaan dhihi karaa inay tahay qof walba wax u dhadhamiyo weeyaan laakiin qaanuun u degsan akhlaaq ma jiro. Immanuel Kant isagu wuxuu leeyahay marnaba dunida ma soo marin qof bini aadam ah inuu ku qanco beenta inay tahay akhlaaq wanaagsan iyo runtana inay tahay akhlaaq xun. qof bini aadam kuma qancayo yiri marna ma soo marin dunida qof bini aadam ku qancay khiyaanada inay tahay akhlaaq wanaagsan amaanadana inay tahay akhlaaq xun. taa ma suurtagelayso. beenta mar walba xumaan ayay tahay waa shar runtan waa wanaag amaanadana waa wanaag khiyaanadana waa xumaan. caalamka oo dhan waa wax ka jiro yiri sababtoo ah qof walba oo caalamkan ku nool gudihiisa waxaa ku jira asal wanaagsan. anaga waa diinteena ku tilmaamaysa wanafaqtu fihi min ruuxdi isaga laakiin maadaama uusan rumaysnayn diinta islaamka wuxuu yiri qof walba gudihiisa asal wanaagsan ayaa ku jira u muujinaya runtana inay wanaag tahay beentana inay xumaan tahay. qaanuun degsan weeyaan oon weligiis isbedelaynin. marka yaan la oranin dabeecada isbedel ayay leedahay akhlaaqda wanaagsan qof walbana waa siduu u arko. waxaa oranaya arrinta filosofkii isagana rumaysnaa ilaah inuu jiray oo ahaa Kant Immanuel Kant. Levi Brol isagana wuxuu leeyahay akhlaaqda waa daahira muuqaal oo ijtimaaci bulshada ah oo qof walba bulsho walbana waxay ku qanacsan tahay wanaag aragtaas un baa akhlaaq ah. sidaa daraadeed akhlaaqda waa sheegasha laakiin qaanuun degsan ee jira ma aha. Bertrand Russell filosofkii isagana ingiriiska ah dhawaan geeriyooday weliba da'diisa weynaatay 80 ka dhaafay oo mulxidnimana ku dhameystay cumrigiisa wuxuu ku leeyahay uma baahnin inay jirto لا نحتاج إلى أن نكون مطمئنين إلى تقاليد أخلاقية إن نيدا نوجد دكت إنه جرى قانون أخلاقي دكسن وهردوني خفكو كينيسو إنه دبتهذا خفكو محروا حمان إنه خفك لو قصة مايو لكن قانون كأخلاق ذا يؤدي تامر كمان ما بهنو يرى أنت سنة وخنع سنة صادرات مركز ساق برتراند راسل وانيكي فرح مي لا ساحدي قبل أوجو أها ما أخاف أجنبي إنه كفصدي قبل لي الساق كسوق قاعد أوجو أها أيو لا ساحدي إذا التلفزيون كشاكتي مستقبل كي إنه كعياري تري أوجي وفرح مي مركب برتراند راسل ساق حكوليه مركب الله ما بهنا إن جرتو أو أخلاق قانون دكسن أو أنا جن دبيس وح والبنية هذا كسر على السماء تا أي أخلاق ونكسن كوا يوليه هذا السكة يسنقدين على برتراند راسل وحوليه ما أبودي إن كنا الله يعني لا أستطيع أن أعيش في ضوء تصور أخلاقي سلطانه الذوق الشخصي إن كنا الله أرن أما فكرة أخلاق إن كسر قاعد
qofka inay kasoo godo akhlaaqda wanaagsan taa marnaba kuma noolaan karo arrintaasna xal uma hay يعني wuxuu diidan yahay inuu yiraahdo may akhlaaqda waa qaanuun degsan ilaa qaanuunka degan ilaah ayaa dejiyay ay ka dambaysa marka mar rabo isaga Bertrand Russell inuu qirto soo hadda ka horba u yiri يعني arrintan يعني intelligent design theory يعني dunidan inay hab nidaamsan oo quruxsan u dhisan tahay arrintaas dadka xujeynaayo oo ka dhiganaya inay ilaahay jiro saa u sameeyay waa arrin in luxdo yiri aan xal jawaabna u heli karin ma inkiri kari tan haddana wuxuu yiri qaanuunka akhlaaqda inay jirto oo dibadda noogu yimid oo caalamkan uusan noo samaynin waa qaanuun aan inkiri karin mana aqaano yiri sababta waxaan dareemayaa aniga shakhsi ahaan qofka bini aadamka inuu xoog isticmaalo dad kale dilo waa waxaan jeclaan sababta aan jeclaan waayna ma garanayo sababtaan u jeclaan ma garanayo laakiin dareen waxa ugu jira in nacbaysiinayo dilka bini aadamka Jean Paul Sartre filsufka wujuudiga aha mulxidka aha oo dadkii ugu horeeyay ilxaadka ugu yeer jiray kamid aha isagana wuxuu ku leeyahay markaan soo qaadanayo yiri hadalka uu yiri Fyodor Dostoyevsky oo ah haduusan ilaah jirin wax walba way banaan yihiin waa hadal sax loona baahan in lagu dhaqmo qofka bini aadamkana waa inuu qaataa sababta wuxuu yiri markii la waayo ilaah inuu jiro waxa qarsoonaysa wax walba oo ku suurtagelinaysa inay jirto qaanuun akhlaaqeed hadii ba aan niraahno ilaah ma jiro qaanuun akhlaaqeedna ma jiro ay noo suurtagelaysa laakiin hadii aan niraahno يعني إله وجرا قانون أخلاقنا ولا صعدا هدي أنا قانون أخلاق جرته إله دجي أي الله صعدا سادر هذا المركز هذا دوستويفسكي وصح دوستويفسكي له رميسان أيوها لكن حكون نقدنا ملحدين إسقنا حوصو خاطر بوستيف إنتها هذا دوستويفسكي ويرا دوسن إله جري وحول بوي بنانته وهذا صح ويري صوتها إله بدوسن جرين يعني قانون أخلاقيات مجرى سادر هذا حكوا له خفك ملحد كأنا waxaa laazim ka ah inuu saas ku dhaqmo akhlaaq ma jirto Joel Markisi 2010 waa mulhid isagana wuxuu ku leeyahay laqad khallaytu an al-akhlaaq tamaman akhlaaq wax la yiraahdo dhan faraha ayaan ka qaaday laqad asbahtu muqtani'an anna al-ilhad madhhab la akhlaqi sababta waxaan ku qancay ملحدنimada inay tahay madhab aan akhlaaq xambaarsanay وبما اني ملحد ما دام aniga aan ahaynin mulhid ahna فعلي ان اعتنق waxa loo baahan inaan ku dhago مبدا لا اخلاقيه يعني مبداها اخلاق ما jirto لقد عشت waxaan la noolaaday الكشف الصادم arinta i argixisay oo ah انه بدون الله لا توجد اخلاق arinta i argixisay oo ah ilaah baaduusan jirin akhlaaq ma jirto وارن صح وانا ارجع تاسان ku noolahay marka ilaahna ma jiro akhlaaqna way jirtaa isma keenaysa ay leeyihiin yani falaasifada mulxidiinta soo kale Julian Vigini isagana wuxuu leeyahay ida lam takun hunaka sulta akhlaaqiyya waahida ay la hadii aysan jirin boqortooyo akhlaaq noo dejisay oo hal boqor ah kaasoo ana ilaaha فعلينا أن نخلق قيما لأنفسنا أنك مركو إن أبورنا وأنك محا أخلاقنا خفر بسيها أبورت محا أخلاقه وليس بإمكانك أن تقول إن ارتكبت خطأ مرنا صورت قال معها إنا تراهد مرك إنا تراهد خلط أيان قالي أما هو الخلط أيو قالي خلط مجرى صحنا مجرى وحول بعضك أذكرها حيثين يسامو كو وناكسن أما فرحت كوا وأخلاق وناكسن تذكر الوحبك هاقا مجرى ألكسندر روزنبرغ سكنوا ملحد كأوحوليه فلسفة أو مادة يلزم منها القول يعني وحكوا عدينيسا بأن بالإلحاد فلسفة مادة وحكوا عدينيسا مادة دنيا دا إن يتهي دوني أن إلهي لهين أو كلي جادة سميسنتي ويلزم منها تانو لازم كغن خونيسو كاغد ألانايو بالعدمية الأخلاقية أخلاق إني سنجرين هدي بقى تهي نن فلسفيا كوخان عي أدون كان نكسمي مادة أخلاق مجرته وكل شيء مقبول اللي يرى هذا وحول بنا أوكي ومقولة سيئة السمعة وهذا شرف عن لهين استيقون بأسبورينا وحول بهدي اللي يرى هذا أوكي وهذا الآن شرف لهين سواء كلا ريتشارد دوكنز ملحد بيولوجي أو عالم أو كنا الإنجليز
isagana wuxuu ku leeyahay ina caalamana bilaa ilaah, caalamkaan ku nool nahay waa caalam aan ilaah lahayn, walidaalika sidaa daraadeed laa yuujadu alkhayru washar, khayr iyo sharba ma jiraan. buuggan wuxuu qoray 2006 yacni ah umalaynta ilahay, wahmu lilaah. والأخلاق موضوعية، أخلاقنا واحد دكسن، قانون دكسن ما هو يري إن يجرته مبدأ ملازمة، يعني صوتها أخلاق ويجرتها ملازمة وحيل حرنتها للإيمان بإله، إن إله لرمى هدي ولي هذا أخلاق أيا جرته الدجن وحاجرة إله دجي ساد راد مرك خير نمجرة شر نمجرة أخلاق دجن نمجرته. هذا ريتشارد دوكنز سجى يسبورينا وحكوليه من العسير جدا وحقيقه أضبو يري عن الدفاع بالأخلاق من أرضية غير أرضية دينية. إن اندفاع أخلاق وناكسا أنيقون دقانين دول دينيت دول يعني هسي عن أخلاق وناكسا دول كان أول شيء وإنها رميسنا هذا الدين، أنا الدين ما رميسني إلهنا ما رميسني، لكن سي حدنا حكوليه وحان إنكرا إنكستو أنيقا عن هيورين عالم بيولوجي أي لازم يقول تهي إن أنكو قناع سنادو أنا سفي عن الدفاع أركت هذا تشارلز داروين وأنا أركت أنكو قناع سنة آدي الدفاع، لكن مرنا وحان قادن كرين أركت هذا سياسات داروين أو نلاش وحكو هراي مرول بكي أذك وأركتي أن خير حنبار سنين أو بني آدم لماذا كبحسن دوكس مركا وإسبوري مرك إلى خير إشار نمجرتو يرى أركت أن خير حنبار سنين أو بني آدم لماذا كبحسن ويرى أركت هذا داروين isaga isburi saadaraad marka wiil ardaydiis kamid ah mar uu weydiinay ku yiri buugga aad qortay inaan kugu amaano ood adiga noogu mahad celisid maxaa waajib ka dhigay marba haddaysan jirin khalad iyo sax shar iyo khayr. wuxuu yiri laakiin waxaa jiro yiri laab raacid ee igu qasbaysa inaan amaantaasna aan u baahanahay ku farxo liididiisana ay muujinayso inaan ka xumaanayo. haddaba wuxuu yiri dareenkaas laab raacida dareen maadada ay samaysay ma aha ee tiraahdo dareen laab raac ayaa jira ee ku muujinayo waxaan inaad ku farxaysid waxaan inaad ka xumaanaysid. soo ma ahu yiri isburburin aad adiga isburinaysid buugaagana hadalka ku qor aad burinaysid. markaas yiri qofka bini aadamka hadduu isburburinin nolosha ma soconayso. qofka bini aadamka hadduu isburburinin nolosha ma soconayso. dookaysa ay ku jawaabay saadaraad marka Michael Rose oo mulxid ahaa wuxuu leeyahay ريتشارد دوكنز مشارك في غزوة دينية أخلاقية wuxuu ka qayb galay weerar diineed oo akhlaaq xambaarsan. دوكنز oo sheeganay mulxid inuu yahay ilxaadkan ugu yeeray dadka wuxuu leeyahay Michael Rose mulxid فيلسوف دوكنز فيلسوف ma ahayn laakiin Michael Rose waa فيلسوف mulxid wuxuu leeyahay دوكنز inuu dadka ugu yeero kitaabkiisa malaynta ilaahay ilan kitaabkaas wuxuu ka sheekay dhibaatooyinka akhlaaq darida ay diimaha ay la yimaadeen ay keensadeen kadibna 10 dardaarno akhlaaqad ay ku khatimay. kitaabkaas akhlaaq ayuu ka sheekay. marka Michael Rose wuxuu ku leeyahay dadka diimaha rumaysan waxa ku filan inay yiraahdaan akhlaaq xumida diinta ma xambaarsanay ragga diinta xambaarsana ayaa nagu abuureen diinta geliyeen. haddii laga safeeyo laakiin diimihii waxay wataan akhlaaq wanaagsan si ay ilxaadka looga adkaanayo. marka ma aha qofka mulxidka dadka inuu ugu yeeraba akhlaaq wanaagsan. Richard Dawkins kitaabkiisa wuxuu ku eeday akhlaaqdii xumeed ee la yimaadeen baadiriyiintii iyo raggii diimaha xambaarsanaa. saadaraad marka wuxuu wataa ku leeyahay weerar dagaal diineed oo akhlaaqeed ah ee ma aha uu yiri nin filosof oo tijaabinaya ku dadaalay inuu la yimaado cadeymo cadeynayso inuusan ilaahi jirin. wa inama laakiin wuxuu u dhaqaaqay ka mubashirin يخبروا عن سبيل الخلاص نين دتك الدين أقول بشارينا دتك وشيء هبكي لقوا بتبادي لها والهلاك يوحي هلاك كيناي. كتاب وهم الإله يعني كتاب كان أخري دوكنز أو مرض إلهي هو قبل كل شيء يعني مروا كتاب كاس وحى أخري وياهي عمل أخلاقي وعمل أخلاقي. وكذلك استجن سوكل وحى كد يدي وددي سقاضي مايكل روز وكحونيه ودد أو خاضي دوكنز ودد أو خاضي كريستوفر هيتشنز سجن فيلسوف وبحيي كتاب كيسة الله ليس كبير إله وحوين معها لا بكون يتضوض أي أخرى وليه هي يعني سجن حقوق سعودي وددي أو خاضي ريتشارد دوكنز
oo sababta diinta isagana wuxuu ku tilmaamay inay tahay diin taageerayso dulmiga iyo dhagarta iyo dilka dadka la dilayo iyo dumarka la liidayo iyo caruurta lagu khasbayo waxaysan u baahneen. intaasoo dhan ma uu leeyahay mabda diin la timid ee kuwa diinta xambaarsanaya diimahooda ku dareen, laakiin diimaha ma xambaarsana dulmi. waxaa oranaya Michael Ruse oo mulxid ah, ma xambaarsana dhagar, ma xambaarsana dil, ma xambaarsana dumarka in la liido, mana xambaarsana caruurta in lagu khasbo waxaysan rabin. isla wadadaasna waxaa qaaday ku leeyahay Sam Harris, Samuel Benjamin Harris oo Mareykanka ku nool, isagana caalim ah laakiin filosof aanan ahayn, oo isagana mulxid ah. kitaabkiisa markuu bixiyay Nihayatul Iimaan, iimaanka inuu dhamaatay, oo leeyahay diinta waa irhaab, argagixisnimo, oo mustaqbalkana waxa iskala caqliga. saadaraad marka isagana wuxuu la dagaalamay akhlaaqdii xumeyd. sababta Sam Harris wuxuu leeyahay akhlaaqda wanaagsan waxaa kamid dadka qaar in la dilo, waa akhlaaq wanaagsan, waxbana kama qabo yiri, xumaan uma arko. muslimiinta dunida ku noolo idil in atomic bomb lagu baabi'iyo. waxa oranay Sam Harris oo mulxid ah oo wili nool. marka Michael Ruse isaga wuxuu ku leeyahay marka qad maata ilaah, ilaah wuu dhintay, falima calay an akuna saalihan, maxay u kalifay nin wanaagsan inaan noqdo. ilaah wuu geeriyooday, maxay u kalifay nin wanaagsan inaan noqdo. la tuujadu adna asbaab an yakuna almar'u saalihan, marnaba ma cad jirta asbaab cadaynaysa qofka inuu noqdo qof wanaagsan. akhlaaqdana waa ciyaar ciyaar, ma jirto yiri wax akhlaaq ah. isaga haddana oranaya Michael Ruse meelaha isku naqdinaya weeyaan, waa dhibaatada ay leedahay. يعني qofka markuu caqli saliim wax ku eegaynin ee laasin ay ka tahay kaliya iska dood ee dagaalan. laqad tawaataat waxay isku raacday shahaadaat al-ilhaadiyya, يعني shahaadooyinka ama cadeymaha ilhaadnimada على تثبيت اقتضاء موضوعية الأخلاق وجود الله. يعني ilhaadnimada waxa la isku raacay hadii la yiraahdo akhlaaq ayaa jirta in nooc cadaanayso ilaahay inuu jiro bilisaanin bayin, عرب عدكو عدانيسو، وعبارة محكمة هي عبارة يعني هذا واضح وعدينا إلى إنه جر. هدو لي هذا أخلاق يا جرت وحنوع عداتي هدان ملحدين نهاي شهادوي كان سووا تكتي أخلاق جرت هدان رانو إن ينتهي إلى هجرة. والإقرار سلطان الأدلة، خير شذنا وحب بخر وياهي دليشي دليل كلا الله ما بحنا هذا أنا خيرنا، لأن هذا الوجود مادة صماء. صوت الدنيا ذان ومادة يعني ماتيريال او دقلا بكما عرب لان هذا الكرن شلا يعني حبنا لهين ان دقاقي كرن لا يمكن صورة قلمها ان يفيض على الوجود معالم القبح والتقبيح. صورة قلمها مرك الدنيا ساس اسميسان او مركي لو فيري كوري فيزيكال يعني فيزيكس اهان وفوقاشو فيزيكال او دبعوين iyo wadooyin loo mara leh oo mugdi ah, malaha iftiin dadka ku dhex abuuri karo dareenka akhlaaqeed. maadadan malaha akhlaaq, maadadan waxay ka dhasheen akhlaaq fiican malaha. sadaraad xataa culimada psychology waxay leeyihiin makhluuqaadka say dhulka isaga dhow yihiin ay u kala laabraac yar yihiin. yani xamaaratooyinka masaska iyo ama yani yaxaaska xasuubiyeedka حتى ubadkooda way cunaan markay rabaan, mana dareemaan mana ka xumaadaan. sababta ah emotionkooda yar, maadada qofkii u dhow emotionkiisa wuu yar yahay. laakiin qofka markuu sarmaro oo jaanib ruuxiga uu aado ayaa ku bilaabanaysa naxariistii iyo akhlaaq wanaagi. isaga marka wuxuu ku leeyahay maadadan dunida ah uma sameysna inay kasoo buux dhaafto dareen akhlaaqeed. dareenka akhlaaqeed haddaan ictiqaadno wax dibadda noogu yimid. sidaa daraad marka شهادتنا كملحدين أهان وحا اسكو تكتي يعني أن أخلاق مجرته يعني وإله مجرى، أخلاق أيا جرتنا وإله أيا جرى. وحا ورنا مايكل روس. سو كلا ديفيد برانك أو ملحد أها سجن حكوليه إن الالتزام بموضوعية الأخلاق عميق. يعني إن لا التزام أو لا يراه أخلاق ذو قانون دكسن وأرن أدو فوق. أنه فوقين يسون جحريس إله إنه جرى. مركو حنوها بون إن راهنو يعني مجرى إلهي. كي نيلسون سجن ملحد حير أعترف قوة حس الأخلاقي، يعني ما لها خير قرنا يوميا. يعني وحن دريم ما أود إنه جرته أو درين أخلاقه وسلطانه
una talinayso cala alcaqli caqligii xataa caqligii haddaan ku qanaya akhlaaq ma jirto caqligii wuxuu ku leeyahay maya dareen kale iga adkaana io muujinaya akhlaaq inay jirto laakiin ma oranayo yiri akhlaaq way jirtaa sababta waxaan qiranayaa ilaah inuu jiro yani waxaa soo baxaysa marka arrinta ahayd moral argument theory. J.L. Mackie oo isagana ah madaxda ugu waaweyn falaasifada mulxidiinta ah kitaabkiisa u bixiyay mucjizatu liimaan wuxuu ku leeyahay qabuul alqiyam alakhlaaqiya in la ogolaado inay jirto mabaadi akhlaaqeed yuwafiru wuxuu diyaarinayaa ardiya beer dhul lagu abuuran karo liliqraar ana alilaha qad wadacaha in loo qiro ilaah ayaa dejiyay qaanuunkaas haddiiba aan irahno qaanuun akhlaaqeed ayaa jira wuxuu diyaarinayaa dhulkii lagu abuurayay oo jiritaankii ilaahay ilaah ayaa jiro ee qaanuunka aan akhlaaq noo dejiyay marka wuxuu kale ina almafaahiim alakhlaaqiya yani mafaahiimta ku saabsan akhlaaqiyaadka مفاهيم الأخلاقية تمثل طابعا نشازا والدباعات كبحسن السجلوين كسريسة للإقرار طابعا نشازا في تصور الإلحاد للكون ملحد لماذا سيد أركان نلش ودباع يعني تصور أخلاق أياجر ودرين كسر إلحاد لماذا ولذلك فإن وجود قيم الأخلاقية موضوعية يجعل وجود الإله أرجح لك هذه لي راه أخلاق دقن أياجرته وحا عصلانا ميزان كي جريتانك إلهي ميزان كينا خفيف نخونا ولذلك عندنا هنا حجة أنا مركب حجة في الأخلاق لوجود الإله حجة وحا أخلاق إن جرت إله إنه جرو وحا أورانا J.L. مايكي أو فيلسوف ملحدة أو مجاسفة مركز ساد رادد مركز خاركودا أرنت مركز ساس نغطي oo baaritaan dheer ay sameeyeen ilxaadnimadu way ka soo laabteen iimaankii ay ku soo laabteen qaar badan oo casrigan ah waxa kamid ahaa C.S. Lewis kitaabkiisu bixiyay cawda ila al-iimaan u soo laabashada iimaanka baaritaan dheer markaan sameeyay waxaan ogaaday qaanuunka akhlaaqda inuu yahay qaanuun caalamkan meel ka baxsan noogu yimid inay jirto awood ka baxsan dunidan ee dunida maamusha anagana saameyn nagu leh meesha waxa iga cadaatay markii ilaahay inuu jiro anaga aan ahayn dad maadiyiin ah Francis Collin isagana markuu akhristay kutubtii oo qoray C.S. Lewis isagana waxa ahaa filosof mulhid kadib ayuu wuxuu qoray kitaab u bixiyay luqadda ilaahay luqatullah isagana cadeynaa ilhaadkii inuu ka soo laabtay oo ku soo laabtay rumayntii ilaahay kadib markuu arkay mabda'i akhlaaqda wuxuu ku leeyahay markii sare igaaga soo iftiintay qoraxdii akhlaaqda aan aniga gacanta ku hayn karin sare igaga soo iftiintay niyadeedana indhihii caqligeygana aan furay caqligeyga wuxuu ku khasbanaatay inuu arko qoraxdaas iftiinkeeda waxay ii muujisay caruurnimadii ilxaadnimada yani ilxaad markaan ahay waxaan ahay qof caruur ah aan caqli lahayn sida Charles Darwin uu yiri ilxaadnimada waa caqliga oo la dilo caruurnimada ilxaadnimada ayaa ii soo baxday saadaraad marka dareenka ah kan ayaa sax ah kan ayaa khalad ah waxay daliil u yihiin inuu jiro ilaahay Albert Einstein oo la yaqaano caalimkii weynaa isagana wuxuu ku leeyahay qaanuunka akhlaaqda dareenka quruxda risaalada diiniga ah intaasoo dhan cilmi kuma yimaadaan awood naga sareysa ayaa keentay shaki kuma jiro yiri qofkii yiraahday cilmi ayaan ku kasbaday akhlaaqda ama cilmi ayaan ku kasbaday dareenka quruxda ama cilmi ayaan ku kasbaday risaalnimada rasuul saasan ku noqday shaki kuma jiro inuu ku feel garoobay imtixaankaas ku dhacayo marka wuxuu ku leeyahay laakiin akhlaaqda nolosha dhaqankeena camalkeena akhlaaqda la socoto iyada kaliya ayaa awood u leh noloshan inay siiso qurux iyo haybad iyo qiimo waxa oranaya Albert Einstein John Cottenham isagana wuxuu ku leeyahay marka waxa arinkeedisa markii dambe hadda nagu noqotay in falaasifado dhan ijmaac ku gaareen ay ka baxsan waayeen inay tahay akhlaaqda qaanuun degan ee noo dejisay awood naga sareyso shakhsi naga saray inuu dejiyay shakhsigaasna waxaan shaki ku jirin akhlaaqda qayb akhlaaqiyaadkiis kamid inuu qayb naga siiyay haddii aan jecelnahay cadaaladda
shakhsigaas naga sareeya waa shakhsi caadil ah, waa ilaahay subxaana wa tacaala. haddii aan jecelnahay naxariista, shakhsigaa naga sareeya waa shakhsi naxariis leh. haddii aan jecelnahay xigmadda, shakhsigaas naga sareeya waa shakhsi xakiim ah. wax walba wanaag aan jecelnahay, awood naga sareysa ayaa nagu abuurtay. awooddaasna iyadaa si kaamil u xambaarsan wanaaggaas. awooddaasna waa awooddii ilaahay. marka falaasifada dhan waxay isku wada raaceen oo ku leeyahay hadda si kasta loo wareegay in uu yahay mabda'a akhlaaqda, mabda uu yahay objectivity moral, aysan ahayn mabda ma aragtay iska sheegasho ah. saa daraad marka yani taa waxaa caddeetay in diimihii ay yihiin mabaadi xambaarsan akhlaaqiyaadkii. haddaysan diin jirin inaysan akhlaaq jirayn. waxaa marka aniga la yaab igula noqotay mar qolo mulxidiin ah aan isugula jirnay messengerka. mid iyaga kamid marka leaderskooda waaweyn kamid ah, topka ah, ee wuxuu leeyahay qur-aanka, diinta qur-aanku ayuu ka sheekeynaya, kulligiisu yiri qur-aanka beej walbo aflagaada ayaa ku jirta. hal meel oo akhlaaq ugu xambaarsan yahay qur-aanka ma jiro. dhowr jeer halkaas uu ku celcelinaya. mar koowaad maahan, mar kale saasoo kale meel aan ku wada kulanay. qur-aan kulligiis wuxuu xambaarsan yahay aflagaado. beej walba aflagaada ayuu xambaarsan yahay. hal meel oo akhlaaq fiican uga hadlaya ma jirto. waxaas markaa waxaa cad, yani culimadu waxay yiraahdaan mushkilatu lmushkilaat tawdiix alwaadixaat. dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa kamid ah arrin cad inaad dadka u muujisto. qofka haddaad tirahdid qoraxda way iftiimaysaa, yirahdo tus iftiinkeeda, maalin qorax cadceed ay soo jeedo, se ugu sharxi kartaa. qur-aanka oo 6,000 iyo googo aayadood ah, 6,200, 6,235 aayadood oo kale inuu yahay jeclahay. cibaadaadka wuxuu uga hadlay keliya 110 ilaa 130 aayadood. haddii la isku daro sunnooyinkii cibaado wixii ku saabsan intaas ayuu uga hadlay. akhlaaqda wanaagsan wuxuu uga hadlay 1504 aayadood. laakiin cuqdada iyo xaasidnimada caqliga bini aadamka ayay dhatiraan, uma muuqanin qofkan cuqdad iyo nacayb uu xambaaro qur-aankii. 1500 qur-aanka 4 meel markuu loo qeybiyo, hal meel wuxuu ka hadlay akhlaaqda wanaagsan. meesha uu cibaadooyinka uga hadlayana, cibaadadii waxay ku muujinaysaa inay door ku leedahay ama sabab ay u tahay akhlaaqda bini aadamka inay wanaagsanaa cibaadada hadday sax tahay. wuu isku xiraya ilaahay meelo badan cibaadadii iyo akhlaaqdii. ilahay مثلا suurat albaqara wuxuu ku leeyahay wastaciinuu bisabri wasalaa. salaada waa cibaado, sabarkana waa akhlaaq. kaalmo waxaa ka dhigataan sabarkii iyo salaadii. salaadaad hadday toosto, dulqaad ayaad yeelanaysaa, dabeecadaada way wanaagsanaanaysaa. ilahay marka wuxuu yiri inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin. arrintaasna way adag tahay ilaa kuwii salaadooda ku khushuucaya mooyaane. yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca asaabiriin. kuwa ilaahay rumeeyo kaalmo waxaa ka dhigataan sabarka iyo salaada. waamur ahlaka fiir, sabarka iyo salaada waa isla socdaan. waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha. ehelkaaga salaada amar una sabr. salaadii iyo sabarkii waa isla socdaan. nabigan asxaabtiisa wuxuu ku yiri mar waxay ugu soo degtay 10 aayadood, kii ku camal falana ilaahay jannatul firdaws ayuu gelin. 10 aayadood ugu horey suuratul mu'minuun. ilaahay wuxuu leeyahay qad aflaxa almu'minuun, waxaa liibaanay mu'miniintii. wuxuu ka bilaabay marka cibaadada alladhiina hum fi salaatihim khaashicuun, kuwa salaadooda ku khushuucay. markii waxaa ku xiga akhlaaqdii hadana walladhiina hum cani allagwi mucriduun, kuwa xumaanta ka jeedsanaya. والذين هم للزكاة فاعلون، كو ددك زكاة سيناي نحريسناي. والذين هم لفروجهم حافظون، كو هدنا زند حمات اسك إلالنا. هدنا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، كو أمانذي بلنتي إلالنا. أمانذنا خيان وأخلاق ونكسن، بلنت الأوفيان وأخلاق ونكسن. ويعني كواس انت سمينا ينردن كواس waxay noqonayaan kuwa liibaaneen. waxaa arkaysa suurat al-furqaan ilaahay markuu ka hadlayo cibaadu raxmaan, cibaadadii iyo akhlaaqda ayuu isku keenaya. wa cibaadu raxmaan alladhiina yamshuuna cala al-ardi hawna, adoomadii raxmaanka ilaahay waa kuwa dhulka ku dul socda iyagoon isla weyni ku jirin. isla weyni kuma jirto adoomada ilaahay. akhlaaq wanaagsan soo ma ah tawaaduca, dibacsanaanta. wa idaa khaatabahum aljahiluuna
qaaluu salaama. haddii loo gafana gafkii gaf uma jawaabaan, nabad ayay leeyihiin, way ka fogaanayaan. waaladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaama, kuwa haddana ilaahay yani habeenkii salaatuleyl u dukanay. yani fiiri akhlaaqdii wanaagsaneyd iyo waxay yani israacsiiyey cibaadadii salaadii wanaagsaneyd. sidoo kale ilahay wuxuu kusoo daray aayaadkiis walaa yaqtuluuna nafsa aladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq. yani kuwa aan nafsada dilaynin. waladiina hum laa yashhaduuna azuura, kuwa aan haddana markhaati ka noqonaynin been. fiiri akhlaaqdii wanaagsaneyd dhan waxay ku timid iyo cibaadadii iyagoo isla socdaan. marka qofka oranaya qur-aanka akhlaaq wanaagsan ma xambaarsana, aniga uma jawaabayo, laakiin waxaa u jawaabaya caalim oon muslim ahayn oo mustashriq ah oo faransiis ahaa oo la yiraahdo Louis Dor. isaga wuxuu leeyahay laa tajidu fi lqur'aani aaya, qur-aanku ma arkaysid aayad ilaa aayadaas oo tuuxii ku waxyoonayso ku muujinayso bimaxabatin shadiidatin lilah, jacayl weyn ilahay la jeclaanayo. wa fiihi xathun kabiir, waa dhiirigelin weyn calaa fadiila, yani kugu dhiirigelinaya akhlaaqda wanaagsaneed. khilaal tilka alqawaacid alkhaasa bisuluuk alkhuluqi, qaacidooyin u gaar ayuu qur-aanka degsaday oo ah akhlaaqda ah. qaanuun akhlaaqeed ayuu qur-aanka dejiyay ku leeyahay, yaa oranaya Louis Dor. wa fiihi dacwatun kabiira, waxaanu dadka ugu yeeraya qur-aanka ilaa tabaadul alcawaatif, dadka inay isku turaan, in ay jirto isjacayl iyo naxariis. wa xusni almaqaasid, in laisku niyad wanaagsanaado. qur-aankii dad saas ayuu ugu yeeraya. wasafx can ashataa'im, aflagaadadana in laiska cafiyo, qofkii ku aflagaaday inaad iska cafisid. wa fiihi maqtun, qur-aanka wuxuu dadka ugu yeeraya in qofka uu dhibsado, inuu naco lilcujb, iska bogbogid, iska helhelid. والغضب إعراضي. وفيه حظ وحون قرآن دتك كل رجلنا على إيفاء بالعهد، بلنتي إن لأوفيه حتى مع الكافرين، حتى قال بلنتي إن أوفيد. وتحريض على خفض الجناح، وحكو رجلنا أنا دقتت خفض بعسن أو سلوين كجرن. والتواضع دبعسنانتي. وعلى استغفار الناس، دتك إن بناف إله لو ويدي إله لو بريو liman yusii'uuna ilayhim, kuwa xataa ku xumaynaya inaad ilaahay dambi dhaaf aad u weydisid. qur-aanka ay kugu dhiirgelinaya laa lacnihim, ma aha inaad lacnadaysid. wayakfi, marka waxaa kugu filno ku leeyahay jamiicu tilka alaqwaali aljaamica, hadalladaas oo dhan almamluu'a ka buuxdo xikmad iyo hanuun ihbaat. yani waxaa kugu filan marka qur-aanka inuu sugay qawaacid akhlaaq fi lqur'aan, inay jirto qaacidooyin akhlaaq u dejiyey qur-aankii. marka taa waxaa qirtay qof si aan caqdad ku jirin, dareenkiisa caqliyeed uusan ku xabisin. dareenkaaga haddaa furtid caqliyeed aad qur-aanka aad fiirisid, waa arkaysaa marka qur-aanka inuu kugu dhiirgelina akhlaaq wanaagsan, inuu kasoo horjeedo akhlaaqda xun. laakiin marka aad tirahdid mulxid ayaan ahay, diimaha waan kasoo horjeedaa, diintii waxay la timid akhlaaq, akhlaaqdiina waa inaad diidaa. haddii aad tirahdid may akhlaaqdii waan ka qaadanaya, de waxaa rumaysay awood ka baxsan dunida inay akhlaaqdii abuurtay. tiina waxay noqotay qofka inuu qaato يعني دينتي إني تهي مبدأ إلهي كي يمد كون كان إنه إلهي أبوري ساد رادد مركا دينتا دبتا ودينتا لسيس أخلاق دي كن إيشان بخل إيا أفر آيادات دادك إني كتاقان المسلمين تسكو تحلو جيان بخل إصدان آيادات إن كله إيكوسو كوان دينتي كلي عبادات أن سيسحنا لو قدانين عبادات هذا صح أهان لهيد وحي سامينكو يالان لهيد أخلاق ذينا. هذا الكيك وحن كسو ختمايا حديث كي قدسي أها يسوري إمام البزار وكسوري عبد الله بن عباس إن النبي كان كسوري النبي كان ملك جبريل وشاقة ملك جبريل يري إله يا إيشاقة إلهي مركم حليح إلهي حكوليح إنما أتقبل صلاة كلية وحن كأقبلها. يعني أنا وحياها أنا ليا وحكمت إعلو الحمي ويجي هذا الصوت دافي لابد إن كفسي السماء جبر ير أفرت وانجر كفسي متكمت أها كان وينا اللي يرى هذا كرن كفسي الله حبسي مركو حبسي كصاب حنا مركو كفسي يوجستون الدليل جبر دي قرناين مركو ويجي سفيرت علامة الصلاة يكتها وأنا دكاناي
إلهي القرآن وحكير إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة هدي توسطه حمانته يكرر بالله صلاة اسمك مقبول متهي إلهي وحونسي شن ميزان أنكو أوغاني إن صلاة دان إنا مقبول تهي قف والبو كايس ويديو هانوكو فكرة شنتان ميزان إساقا مبوحي مثل مبوحين إلهي وحيري إنما أتقبل صلاة وحنك أقبلها كلية ممن تواضع بها لعظمتي خفك دبعي نخضي خفان إسلويني كجرين أنيق وينيسين هذا وين إسلويني أنيق كلي إداي أنيق وينيسي لك إسلويني أو كجرين هذا أرك تتخف إسلوين حتى هدون نخض خف علامة صلاة هالكان أصارا جروين أما الشيخ شيغانا يا حتى إسلويني حنبارسن أقول صلاة إنسان مقبول أهين أخلاق أيو إلهي كهدل صلاة وحن كأخبلا خف آن حنبارسنين أخلاق حميدة وأسلويني ده ولم يستطل على خلقي جيجانا دباتا أن أقايسين خلقي جي حتى بني آدم ما أرانن بني آدم مسلمين ما أرانن بني آدم ما أرانن حتى حاله مخلوق أن أنيق أبوري لن نبقى أن أقايسين دب كوين مجرى مانت بني آدم كي إن لو جيستو وأهدل قفك أرانا يا مركمانت صلاة أيان أوغا داد كان وان دلايا دل كان قرآنك وحكوية مت كلية الله مجر نف دشي إن لقى عارة هدي كلا دلاجة تدخلوا ستة كسي لاينايا أما خف هو بساقاتي رادتك إنه بابي إن لسك دعيو لكن حتى خف كسوب كساقاتي هدي جعنت اللوجو ديجو ما إن للدلاء وماء قرآن هان مركان فيرنا إلى قرآن كسعكوية حتى إذا أسخنتموهم وشدوا الوثاق حتى مركد كاتان حرحرة soo qafaala dagaalkii markuu joogsado labada arin lagu sii qafka hubka soo qaatay inuu ku dilo aad ka adkaatay aadan dilin wali ma dilaysaa waa maya fa imma mannan ba'du wa imma fidaa ama inaad iskaga nimcaysid iska fasaxdid iska sii daysid ama inuu xoolo ama aqoon u leeyahay isku furto ama inuu xoolo isku furto ama aqoonta uu leeyahay qafka inuu ku baro soo nabigeena ku yiri dadka bara si wax loo qoro loo akhriyo kadibna xor ayaatihiin فإما منا بعد وإما فداء لكن فقهاء هذا مركي كورديين أما إن للدلو أما إن لا أدون صدق ماشي وحيمد قانون كبحسن قانونك إلهي أدجي تا أيا وحيابها كان مركمانت الحاد كإنه بط الحاد كلامه وضع أيدين كرو صوتا دين تي جوهر كأهيد يا وحالا صاري لغر أدق أو دين تكمد أهين إلى قرآن سكروا إن فريقا منهم يعني يلوون إن فريقا من يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون تذكر أهل الكتاب مركز شيكين عرب كذا حي كل حنايان هذا لقار وحلين كتابك ويان سياد أم لسان كتابك إنه يهي وحين لين قرآنك يقرأ كتابك وكمان قرنا أحكام دين كمان مدها إلى حق سيكيمد إلى حق سنة كما إيمان إلى أي كوبين أبو رناين إيجوك لابد قانون ديلك أهيد أو أها نف دشي يخاف هو بسوقاتي أنت كبحث أنا لديلي كريم أنا أنت أحكام أيان دجني وديله كي صلاتك تقوى إن لديله هيدنا معها إلى إن ما أمرن كي ما أركتي إسلامك كبحوا إن لديله إلهي إنما أمرن وقوانين فقهاء أي دجيان وكسو درين دينتي تا اسايا كفول حماتي dadka qaarna ku kalifeen meeshii daboolkaas ka qaadi lahaayeen inay diintiiba ka cararaan ay uqdad u qaadaan laakiin diinta sax ahayd waa tii bini aadanimada xambaarsanayd marka ilaahay markuu leeyahay salaad waxaan ka aqbalaa qafka aan salweynada ku jirin haddana qafka aan dadka dhibaynin khalqiga aan dhibaynin walam yastatil ala khalqiga aan dhibaato gaarsiinaynin walam yabit musirran ala macsiyati habeenkiina ku seexan asagoo go'aansan inuu igu caasiyo dambi gal qafka go'aansan dad inuu weerar ku soo qaado ama dad isku qarxiyo ku seexday waa qaf salaadiisa aan la aqbalaynin wa qata'a nahaarahu fi dhikri maalintiisana ku dhameystay inuu xasuusto markuu xumaan arkaa ilaahay xasuusanaya iska ilaalinaya wa rahima al-miskiina wa ibn as-sabiili wal armalata wa rahima al-musaab una naxariisanayo miskiinki iyo qafkii musaafirka ahaa ee qaftii gablantay odageeda ka geeriyooday una xariisanay qafkii dhibaato soo gaartay cunug yar agoon noqday aabihiis ka geeriyooday una xariisanay fiirso intaas oo akhlaaq wanaag soo ma aha salaad waxaan ka aqbalaa qafkan isla weyn ku jirin dadkana aanan dhibin kuna seexan oo dambi galo
maalintiina ku dhammaystanayo inuu xasuusto una naxariisto dhibanayaasha. ha noqdo qof maskiin ah, ha noqdo qof musaafir ah, ha noqoto qof gablantay odageeda ka geeriyooday, iyo ha noqoto cunug agoon ah. intaas oo naxariisanayo. intaas qofku markuu la yimaado ilaahay abaalkiisa dunyada abaalkiisa qaar ka mid ah mirahii salaadii in laga aqbalo qaar kamid dunyada ay ku tahay. wuxuu leeyahay ilaahay marka dhalika nuuruhu ka nuuri shams, qofkaas wuxuu iftiimayaa sida qoraxda u iftiinto oo kale. qoraxda si dadku ugu iftiinto wuxuu noqonayaa qorax dadkii u soo baxay u iftiimisa noloshii. akla'uhu bicizati, waxaan ku hogayaa cizadeydii, wuxuu noqonayaa qof la cizayna la ixtiraamayo. astaxfiduhu malaa'ikati, malaa'igteeda waxaan amraya inay xifdiyaan qofkaas, shaydaanka iyo sharta ka ilaaliyaan. ajcalu lahu fi dhulmati nuura, dadka waxyaabaha mugdiga ugu jira ay ku jahwareersan yihiin waanu iftiimiyaa. wattaqu llah wayucallimukum allah, ilahay ka baqa, ilahay cilmigu idin baraa, ilahay tu qur-aanku yiri. waman yattaqi llaha yahdi qalbah, kii ilahay ka baqana ilahay qalbigiisu hanuuninaya. in tattaqu llaha yajcal lakum furqaanan, haddii ilahay ka baqdaan wuxuu idin siinayaa caqli iftiimayo, idin kala saaro, idin tusaayo maxaa saxa maxaa qalad ah. ajcalu lahu fi dhulmati nuura wa fi ljahaalati xilma, markii loo gafana waxaan siinayaa ku abuuraya dareenka dulqaadka ah. xataa haduusan hore dulqaad u lahaan jira dabeecad dulqaad ayuu xambaaraya. fiir salaadii saameyntaas ay ku sameynaysaa. wamathaluhu fi khalqi, khalqigana wuxuu ugula mid yahay kamathali lfirdowsi fi ljanna, jannada firdowsi janooyin kale u tahay. jannada firdowsi janooyin kale way ka sareysa, isaga khalqiga wuu ka sareeyaa. way ka raaxa badan tahay, isagana sidoo kale khalqiga wuu u raaxeeyaa. way ka khalqa nimcada u tusaa ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay kuwa salaadooda saas u aqbalay, ilaah ha naga dhigo. marka sidaa daraadeed nabigeena caleyhi salaatu wasalaam dabeecadaha uu la yimid waxaa ka mid ahaa inuu oofin jiray ballanta, inuu oofin jiray heshiiskii, iyo intii ciddii wanaajisayna inuu wanaaji jiray. sidaa saas ku dhacday. taa waxaan ugu sheekeyn doonaa casharka 103 ee soo socda. jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu.